madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa la weydiiyey dhowr su'aalood. Su'aasha koowaad waxay ahayd go'aankii ugu adkaa ee uu qaatay noloshiisa, sida uu dalkiisa uga soo saaray alla ka sokow dagaaladii sokeeye iyo kala qaybsanaantii ka dhex jirtay jadwalkiisii nolosha xilligii adkaa. Waxa uu ku jawaabay sidan: We need to turn things around and say, no, let's unity will always lead to progress and success. go'aankii igu dhib badnaa ee aan qaato waxa uu ahaa markii qabiilkayga Tuutsigu soo galeen magaalada Kigali ee caasimadda ah iyagoo doonaya inay ka aargutaan qowmiyadda Hutuuga oo dad ku dhow 1 milyan oo qof ka dishay. qowmiyadda aan ka soo jeeda ee Tuutsiga waxaan qaatay go'aan aad u dhib badnaa oo haddii aanan qaadan lahayn maanta Rwanda aanay halkan joogteen. inaan qanciyo qabiilkayga oo caro iyo ciil gaamuray qaba way adkeyd, inaan raalli ka noqdo inay aargutaanna way adkeyd. waxaan ku idhi, haddii aad aargudataan oo intii la idinka dilay dishaan guul gaari maysaan oo idinna berito ayaa la idin laynayaa. haddii aad samirtaanna Rwanda waxay noqon doontaa dal dawlad leh oo dadkiisu iscafiyey. taariikh bay idiin noqon doontaa ee taladayda maqla oo hubka dhiga oo dib u heshiisiin aynu dadka ugu yeero. ma ahayn go'aan sahlan in jabhad 10 sano soo dagaalamaysay oo awood qabiil iyo mid dawladeed loo sheegtay oo maatidoodii si safmar ah loo xasuuqay oo si sahal ah inay go'aankaasi ila qaataan, laakiin waxay ku qanceen inaan cidna dagaal guul ku gaari karin sideedaba. dhabtii waxay ahayd daqiiqado iyo saacado qaraar badan oo kala go'aaminaysa in Rwanda ku sii socoto dhabbihii daadinta dhiigga iyo gumaadka shacabka ama iscafinta tanaasul. waana go'aan sabab u noqday in maanta dadka reer Rwanda iscafiyaan oo yeeshaan qaran adduunka sumcad ku leh. jadwalkaygii nolosha iyo xilligii adkaa ee u soo shaqeeyay Rwanda wuxuu ahaa sidan: 2 saac waxbaan akhrin jiray sida buugaagta ay qoreen hogaamiyaasha caalamka ee guulaysta iyo macluumaadka ku jira. 2 saac qoyskayga ayaan la qaadan jiray. 4 saac waan seexan jiray. 16 saacadood dalkayga hooyo ayaan u shaqayn jiray. wakhtigaygana kuma lumin jirin inaan madax shisheeye la kulmo iyo inaan safaro badan dibadda u aado oo aan ku soo dhammeeyo. wakhtiga ugu badan waxaan gelin jiray sidii aan dalkayga uga saari lahaa colaaddii sokeeye iyo kala qaybsanaantii ka jirtay Rwanda oo markaas xanuun weyn ugu haysay. waxaa igu adkaatay sidii aan u soo dhisi lahaa ciidan qaran oo dalka Rwanda oo dhan ka dhaxeeya. taliyihii aan magacaabo qabiilkiisa iyo jabhadihii dalka ka jiray wuu ka soo buuxiyaa ciidanka. intaa kadib waxaan go'aan ku gaaray inaan anigu gacantayda ku qoro ciidanka oo dhan oo aan qabto shaqadii taliyaasha iyo taliyaha guud. waxaan sidaa u yeelay inaan u helo ciidan qaran oo Rwanda matala. waan daryeelay. waxaan tusay wadaniyadda iyo in Rwanda oo qaran ah ay ciidan u noqonayaan. falsafadaas ayay ku dhismeen ciidanka reer Rwanda ee maanta ka mid ah kuwa Afrika ugu sumcadda badan. sanado badan oo aan qowmiyado u kala qaybsanayn, wadamo darisa iyo kuwa shisheeye oo ayna kala taageeri jireen, waxaanu ogaanay in aanayna heshiisiin karin ilaa aan annagu heshiino oo ogaanno in annagoo reer Rwanda oo Rwanda wada leh aan noqon karo qaran la mid ah kuwana heshiisiin jiray. dadka ayaa iscafiyey oo gartay nabadda iyo dawladnimada sharafteeda. waxaan xoogga saaray waxbarashada, inaan samayno wax soo saarka beeraha, inaan ka maaranno ku tiirsanaanta deeqo wadamo shisheeye. intaa kadib markaan samaynay Rwanda maanta waxay ku faanaysaa inay ka mid tahay wadamada qaaradda Afrika ugu horumarsan ee caasimadeeda Kigali ay tahay tan Afrika ugu quruxda iyo nadaafadda badan. dhaqaalaha wadankeena Rwandana sanad kasta waxa uu kordhaa 8%. sidoo kalena waxa aan ka mid nahay wadamada Afrika ugu ammaanka iyo xasiloonida bilicda iyo barwaaqada badan. Soomaaliya Rwanda 2 sanadood ay xorriyadda kaga horeysay, wax ka yar 4 sanadoodna ay burburka kaga horeysay. laakiin farqiga u dhaxeeya
waa hoggaanka iyo shacabka. I think the amount of work we have done to change things, change the mentality, change the thinking of people. And the very lessons brought by the suffering and all the horrific things that happened to us in the genocide, I don't think there would be any grounds for the country going back to those bad days. That is my belief.